arag hooyadeeda adduunka ugu jeclaaba halkaa sharmuutay wax kasta lagu sheegay maanoo ka hadlayaad aragteen anuu halkaas wax kasta ubadkayga adduunka lagu eedanaya aragteen maanoo ka hadlaya aragteen ma anuu wax kasta ka hadlin may marka aan hadlo aamin waa wax jira garaadku markuu hadlo aamin waa wax jira wey beri baan kula hadlaya saata baan kula hadlaya hadalkayga dhegeysa so waxaan arkaya rag halkan oo dhahaya gabadhu waa sida wallahi qof kale niga sheekeynaya horta maasha allah waa qof aqoon waxa la yiri Soomaalidu waxay ku maamaadaa saddex wax iska ilaali sheekayda baan niga sheekeynaya Soomaalidu waxay dhahdaa inaan la gar qaadid xaaskaaga waa wax xun because markaas iyada ka gar leh saddexda waxaan ku sheegay markaas iyada ka gar leh haddaad maanta ay ku dhahdo aad in yar kala dhamaatayna waxay leedahay ma ka aha 10 sano ila noolaaba waxbay ma siin dhalay wacal way kan way madan haddii aad dhahdo war walaalo anigu sidaas hayday sidaas way waxa lagu leeyahay dadka ku ajixin waa ka gabadhigu la tirsaday waa ka kidaas taas waa ka nacas ku xigana lama qadiyo nacaska ku xiga marka aad qadisid ogow sirtaada noloshaada waxa ugu dhanba wada baafinaya ka ku dhow ka kala buu kugu diraya kan inaad ark saddex qof ka aqoon badan lama cadowsado qofka haduu ka aqoon badan yahay weliga cadow ka dhigana la saaxiib weliga cadow ka dhigana la saaxiib aqoon waa serious aqoon daro haduu ka hayso qof ka aqoon badan yahay la saaxiib wanahaji حق أقوى وطني سيد هذا في وعدي هذا أقوم ضرب هاي سنة مات قف كله دوك أقوم في عين كفائديس وانا رشوا أنت ما أنا جالس كبوغي قيل النعس كوطان أنا وضع شيء كذا قبلنا كان هذا الهايو ماشي مو تيك توك تمربتي أنا كشكيني قبلنا ما أنت برنا إله بيقصر بيني شيء ما Soomaaliga mina gabba bay ka in yar bay taqaan yar oo yar oo maxaan ku dhigi karaa Soomaaliga la wadi kara la taqaan sheekadan iyo sheekaniya dan waan bartay asxaab baan noqon waa gar wala shortiga weyn dadka halkan wax rabaa inaan horto in yar wax ka dhacay inuu xaaslaan horta aniga sheekay ma rabo inaan inuu saxaani ma qoran dhax karo laakiin gabadhan ay wuxuu qoysan waa walaal iga weyn mali like she's my big sister adan dhaya beri waan dhaya saada man dhaya saa kuma ku dhacdo fucking care wax iga aaminsan laakiin waa gabar walaasheeya nolosheedana wax badan dul taagneed hadday adduunka oo dhan ka soo horjeestaan she's one and only walaasheeya markasta because qofku waxa fiican markuu ku ixtiraamo oo qiimaha iyo walaalnimadaada iyo ciisadaada iyo karaamadaada ku yaqaan uu og yahay inaad tahay qof agtiisa qiimo kale uu og yahay qofkan inaad wanaagayso aniga adduunka oo dhan hadday ka soo horjeesanayn adiga markasta walaasheeya serious because saata zanile waxay tahay you know qofka og waxad gudud iyo waxad goysi dadka kale uu kaaga qiimo badan yahay dadka kale uu kaaga qiimo badan yahay anigana qofka garta waxan gudo iyo waxan gooyo walaal iga dhigta igu helshada ehel iga dhigta saaxiib iga dhigta weliga muxumeey waan ilaashtaa qofkaasna uu ilaashtaa serious so ani wada sheekada gabadhan markaan isbaranay that was not shukans walaalnimo weyn baan u bartay gabar walaalna iga weyn baan u bartay and she was booska amaantan gastay la hadii taaginta maalin ilka la igu madabeeyay man arag wax dhibaato ka sheeganay wax xumaan iyo wax dhibaato wigi man arag never man arag waan bartay you know muddo badan bay familkayga hore noloshayda ilaa right now da bay ila joogta ilaa fuck right now da ba walaalna maalinna inay tala isiiso mooyaane dhahda shan markay walaal tan samee go focus your life kaaga noloshaada samee tan baro tan samee horumar samee noloshaada ka adduunkan waxaan ugu jeclaa mataqaana adduunka qofka aan lacagta ku bedelan karin mataqaana qofka markaas danteeda ii sheega dhaho focus your life waa qofku jecel qof hadduu ku dhaho focus your life waa qofku jecel qofka hadduu ku dhaho markaas runta kale hadduu ku dhaho noloshaada ku dadaal leave these things ka bax waxaas khajaanimada tag go make money go to tan samee waa qof ku jecel noloshaadana horumar kula rabo xaasidku ma rabo intaa xaasidkii qofku nicibka maaha sidaa dadku sidaa qofku raba markuu rabo inaad maanta horumar gaartid ku dhahaysha marka what's going on tan qabso tan samee horumar samee kan samee
وقف كربا أنا قف كس noloshayda maalin inta igu dhahan oo ilaashtan walaal waan ilaaliyaan ixtiraamkiisa qiimihiisa naqaan gabadhan walaashayga just aaladahan social media aqoon badan ma lahan jirin bariga hore you know gabadhan walaashay ilaas ka daysay waxay ahayd managerad hore ahaan jirta aniga sheekay gabadhan walaashay waa you know ma jeclinaan serious kama haysto permission like someone sheegaya permission kama haysto ma dhigi karo you know fasax like someone sheegaya gabadhan halkan TikTok la wada haysto you know intaan berigan bartay waxay ahayd balaayir kubadda ciyaari manager u ahayd oo kubadda ciyaaro manager baa ahayd you know Ashley Cole hadaad garanaysaan Nigel soo ciyaari jiro balaayir kubadda ciyaara u ahaan jiray ma fahmaysan Ashley Cole baa 3 uu ka ciyaari jiray halkan intay daawanaysa halkan sheegay so gabar wanaagsan baa waa gabar walaashayga weyn ixtiraam baan ku bartay berigii Ingiriis baan ku wada hadajinay Soomaaliga baan baray nolosha baan baranay family kan dhaxkeen berigiidan family after 6-7 months ka bacdi family baan heshay waan baray keegaan dhaxkeen up since right to now dayda sidaas nolosheena ahayd inta ay nolosheeda la joogtay maalin ilaahay baa iga sariyay waa dhaartay kun qof bay daawanaysa maalin maan arag gabadhaas oo dhahaysay marka xataa wax yar oo khalad samee xataa ficil yar oo kuleyl soo gashay ma arag because any time since you know gabadha waxaan aad ugu jeclahay because bal xagaad ku aragtay qof maanta jooga 8-9 sano ku yaqaan oo only ku sheegaya kala hadlaya kuugu imaanaya ku dhahaya kaasi dhahaya ku soo jeesanaya focus your life ka noloshaada horumar gaar xagee laga helaa walaal qaali hu maanta ka dhahaya waa kee walaashay walaalka kuma dhahayaan qof intuu 8 sano 9 sano istaqaanaan ku dhahay walaal noloshaada horumar samayso ka kacmeesha shamaarka tan samee go forward tan bax kan qabo soco way yarta and if of sidaas oo kala heshaan you know never lose karayn and I never lose walaashay you know why because aqoon baan ka faa'iiday waxbarashaan ka faa'iiday you know garab baan ka helo waa you know garabku maaha wax isiin garabku maaha wax garabku waa isku sheegitaanka sometimes balan baad rabtaa baad haysata laakiin meelaad ka bilowdid baad garan lahayd nolosha so qof baa kuu saxaya qofkaas garab buu ku siiyay walaashay too much garab in noloshayga siisay serious wax badan bay nolosha waxay ka bartay wax badan qofkana libintiisa abaalkiisa waan u hayaa markaas anigu libinta qofka bilaadanka ma haysto ilka ilaahay ay ugu mudubay 2 mitir baan galay iyaduna ila gelimaysay gabadhaas halkan ku haysataan social media dhan wareegtay intaan noola iyo intaan noola iskada intaan aqaanaya maalin leema soo istaajay gabadhaas xataa xumaan yar xataa ficil yar xan iyo dad iyo dhibaatooyin never soo sheeka niga sheekeynaya gabadha markaan bartay xaraba dad halkan beentooda inaan akhriyaan rabaa iniga sheekeynaya isqajaamin been halkan ku jirtay mid Khadiija Mulo la yiraahdo jilicsano futada xaarku ka daadanayo jilicsan way kaas ana horaan u sheegay maalintan jilicsan kugu tilmaamay dumarka kugu dirnay walla been ma sheegin walla garaadka been mu sheegay maalintan dumarka kugu tirnay heer waxa ka soo dhamaal dhow heer waxa ka soo futada dhigatid walla maalintan jilicsan kugu tilmaamay been ma sheegin serious hadda jilicsan dumarka sheekadooda maalinkaas ma dhaxwadan fiisku marasatay serious aan waxaan kugu tilmaamayna waad haddaan ku dhaaya bari baan ku dhaaya saata ku dhaaya la buuf dhalay baad ana hadda ku dhaaya jilicsan sheekan iga sheekeynaya gabadhaasi wallahi family-kayga dhaxkeena libinta qofku waa la siiyaa ana I appreciate walaashay halka hadda iga daawan saxaleeyaan love you so much walaal intaad inoo barigan family-ka la ilaa hadda intaad garabkayga taagan tahay inoo waxyaalo badan baan walaashay dhinaceeda uga samay waxyaalo badan baa dhinaceeda markaas leeg xijin jir oo miyadaha live you know hadday meesha loola joogto ay live you know she's good so sheekani wada sheekadan dhamaystire dan waas baranay muddan isnaqaanay family-kayga dhaxkeenay I'm never you know inta aan nolosheeda qaanay maalin xumaan kama arag dad halkan waxa jira dhahaya hadda ciwaanaday urursataa waxyaalo unada Soomaalidu maalintaad horumar istaagtid horumar u kacdo oo eraygeygii baan kugu soo celinayaa dhageysta dadka kugu dhow hatta ka shisheeyaa tag maalintaad kor u tag maalintaad kor u kacdo dadka kugu dhow kan dadka kugu dhow baa lugta kugu dhigay maalinta aad kor u kacdo ilaahu haddaan been sheegaya baan ku iimankayga tijaabi waxaan ku leeyahay bal in nolol yar kor u qaad kan kugu dhow wuxuu ku leeyahay dhakab xagga u socota cabdo xaggaad u socota ma ogola bili aadamku inaad
never inaan horumar uga kacin. Never, 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 never. Gabadhani, noloshu booskii ma taagnaano, waa la isbedelaya qofka. Future buu samaysanaya, horumar buu samaysanaya, nolol buu samaysanaya. Walaashay, since aan familka lahaa muddo, waxay ahayd qofka markasta garabkayga ah. hadday familka dhinaceeda noqoto, hadday aniga dhinaceeda noqoto, she was only markasta qof aniga iyo xaadir waa. qof markastana wanaag iyo ixtiraam iyo sharaf iyo ciise iyo karaamo lana waa. bili-aadanku markay rabaan inay ku cadiifadayaan, ay rabaan inay dharka kala baxaan, xaasidna yihiin maaragtay. xumaadaan lahayn, beenaan lahayn, dhibaataan lahayn, qabiilaan lahayn, qurunaan lahayn, saqajyadaan lahayn bay kaa saarayaan. seriously, maalintaad ogaatid inuu xumaan iyo qurun lagaa sheegayo, ogow. waa maalinta ay bili-aadanku ay ogyiin waxaa tahay. laakiin marka laga aamuso cidna lagugu tilmaamo ma oga waxaa tahay. haddii maanta anuusha markaa lidhahay dhulbahantana, okay, dhulbahantana dadka qaarkood waxay dhahaan xabashi weeye, ogaadeen weeye, saan waay, sidaan ogow. ha umala inay caynayaan, they know me, but inay dadka xumaan ka dhacdhacsiyaan bay rabaan. seriously, inteeba halkaa arkaysa berigan familka kuwa dhahayo dhulbahanta maa kan, waa sheegata. berigii dambe markaan isbaray qofkaan dhahay huu ariyo garaad iga daba dhahay halkan, garaad bay iga daba dhahnaa. hadda kulligood safka gadaal bay ka wada tukadaan. nacla washaysak safkay gadaal ka wada maraan. nacla washaysak. marka anaa kuu sheegay, bili-aadanku marka ay ku cadiifadayaan oo maray ogyiin waxaa tahay, right or not. so waxaana aragtaan isugu yana dhameey because meesha waa caabiyo. sheekayna maanta aniga doon karana dhagahan ka jaba isugu saaxiibyalo khiyaali bakti qurun baad barateen. ana runta nii sheegay wallahi, bakti khiyaali baad barateen. maalin kasta daraamay filmaaniga gal, laakiin maanta runta nii sheegay. so qaacidooyinkii qaat maalintaad aragtaan qof la caynayo, qabiilu lahayn, qurun lahayn, waxaan la way ogyiin dadka caynayo wuxuu yahay. ha malayna ogeyn, ha malay. laakiin si adiga lagaaga gado, si adiga lagugu la dhaho qofkan wuxuu yahay, si adiga lagugu dhaho waa saqajaan qofkan, si adiga u yahay waxa ba wuxuun ahayn laga sheegaya. yaa way qofka laga dhaadhacsinay kaa dhaadhicina adiga wey, not qof kale kaa dhaadhicina you. adiga way qofka kubadda ah lagu ciyaaray garoonka waa adiga. kuwan kalena waa labadii kooxood. adiguna maxaa tahay? kubaddii baa tahay, garoonka dhex tala marba dhinaca lagu tuuraya ba. seriously, aamin caqligaaga saa unuu shaqeeya. haddaad caqligaaga u shaqeyn ku laabo naaska hooyada, adoo intaa leeg naaska hooya naas isii ku dhasoo caqligu kugu buuxsano. qofba qofku ka naas hooyo baditaan cabitaan yahay uu ka caqli badan yahay. serious, ku laabo adoo intaa leeg gafuuray naasa kugu yaala hooyadaa, ku laaba naaska hooyadaa soo cab, caqliga ku buuxsamee. iyo aamin miisaan والله يا أميني مثلا لكن واحد تقانا قف كرنتني شكل دقن بوتقان لكن كرجع دوما كان يلحن واحد وتقانا الرجال صح نينك قبلها بلا آذن كهالكاس حنت يقولون كي بختي وإحنا ينقى شيء وان الرجال صح كان دوما كلا جوجا وان الرجال صح قبل هذا اللون ما نبى مقص بالله صور نا قبر ما سو هذا جميت كل ميدا ما واي خنيس ده لو قد دفاعي هذا قبر هو يلي سوي الله حتى اللي قدام مير نمضى كوشة حتى قبرتها قبرك جبن سوينا قبر أو جبتها not إن الخنزين ده وجبت الماء. ما أقول لي هون تديد أنت. ما أقول لي هالك أصلا يسوي لي جنس من شريح سنو. سيدا رجال كان تقر صوص ميس هذا وقر شغال لو صوص عريس لكن لو صوص عرب هالك قصو فريسنا يا ويقول لي قبل هاس واسيرة وأورامو كلابية ده يروح اللي بقول جمح وقبل ده مولي كلا متخيل بسم الله الشيء حلي وحو قبل هذا نيجا شكل ولا شيء لولا مركز توان شعله واندفاعية أنا هذا نلاقيه لولا شيء استوانا نقول ولا شيء واندفاعية because صارت اندفاعي وحتى ولا هذا النقطة أبدكي هذا النقطة أنا وش مرة والي جاي قرب كي مويان مالين دبعتيري ميجيسن مالين كمان نرى only إني هرمر إن نقطة ولا كخوف قرب كي أنا هذا النقطة شو سلعة توه نقول جرب قرب يهاي أنا قلت دتك يودو ولا لي صاحبي كل سكان هو بيجو قرب يهاي مالين بوس كي جبهن يقولوا ببوس كي بحي ما أنت نروش يقول ما تلاقي شيء استوانا إنه only قرب كي هاي شيء استوانا only قرب كي هاي
dadka maanta ku jisaareen dabada qurankaani waddaday wanaajisay oo maanta ku jisaareen sida aniga shalay lee jisaara maanta iyadoo lagu jisaaraya seriously qofku waa xaasidin dadka seriously منافقنا واحد يجي تويا حورين استمتخنا أرجع صدق خلط هو يدي تايب بريس وشيء منافقنا واحد شو شيء بنودي كان خديج ملا لشيء والله قبل كلام هوسي واحد سوريا قبل أن أنا جا واحد إلهي وله تجيه أنا أفصومالي قبري قف كان أنا أفصومالي قبل كده حكيني ونور الشيء ده صومالي